channelkeena kobcinta garaadka caruurta waa walaashin Raxmo Xuseen. Soon wanaagsan, Ramadaan Kariim, soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadlaynaa sideen u fahmi karnaa caruurteena dabeecadahooda. Sideen u kori karnaa caruur isku kalsoon. Caruur aan isfahmeyno guri degan. Waxaan ka soo qaadaa laba dabeecad oo badanaa caruurta ay leeyihiin. Cunug waa cunug degan, Ilaahay deganaasho u dhaliyay. Waa cunug jecel waalidka inuu ka faraxsiiyo. Waa cunug ama cunugta gabar wiil whatever waan cunug la dhahaynaa. Jecel inuu guriga wax ka caawiyo inkastoo markasta wadaada ku xiran tahay. Waa cunug jeclaan ordin iska degan. Cunugne boqol oo ku socdaa soo kugu agmara. Waa u bixinay magaca u sameynaa garanaysin qalqaale. magacaas maxaa maqlay cunugayga waa qalqaale maya mardab maanta laga bilaabo cunuga qalqaalaha iska dhihin na baladid magaca u bixin ma xasuusatid cajalahayga dhamaxan ku soo dhah cunuga meesho ka jalacsiyan ama ruux meesho ka jalacsiyan ku caan hada cunuga fudud adna qalqaale ku dhahdo waa si waalana la marka qalqaale kada waa cunug fudud boqolka ku socona la video-ga fudada dhaala maanta ka dabeesna mar insha Allah waxa dhibays inuu fariisto oo wax akhriyo hoosh oo nacib yahay ama nacabtaha labadaas cunug hadaan isku kambeer gareeno oo dhahno war hebel ama heblaayo kala ma noqotid cunugaas niijaba ku dhacayso sababta ma noqon karo Ilaahay uma dhalin sidaanu Ilaahay u dhaliyay anakane waxa u baahanahay ina meeshu culmahan ka jecel oo ka jilacsan yahay indhaha ka xiran indhiga xiriin laakiin ku boorino meesha ku wanaagsan yihiin hebel ama heblaayo kala ma noqon karaan labadooda midaan kala iska degan ama midkan kala iska degan ma noqon karo midkan kala boqolka ma noqon karo waa ina kala saarnaa labadan cunug ama hasla dhashaan ama mataanaha ahaata ama diris ahaada labadan ruux marna isku kambeer gareen marna waalid hadaan afkeen ina ka soo baxma hebel ama heblaayo kala ma noqotid cunug fudud maxaa haduu ila daro sameeyo maxaa ku edbi karnaa wuxuu jecel yahay ka qaadayna هذا يرتا 5 سنة 6 سنة 8 حكا يرنا waxaan ku sameyn karnaa time out gali karnaa meel fariisan dhig karnaa maqalka gala dhig karnaa inta sadib ugu filan sababta maan waxay jecel in ordaan halkan fariisadii la halaas sadib ugu filan ama wuxuu ku ciyaarayeen laga qaad inta sadib ugu filan ama haday weyn tahay xoogaa 10 door wixii si jirin ka celino saaxiibada lama soo ciyaar inta sadib ugu filan laakiin midkii kala deganaay oo saaxiibay waxba kala jeclaanbo hooshan iska qabta iska jecelba ma ku edba karna iyada dhig cunugaas si kala ula dhaqmayna waxa ula dhaqmayna cunugaas maadaama uu nacib yahay inuu qofna ku xanaaqo ama oo dareemo waalidkiisa inuu ku faraxsanaado only thing oo sheegay soo fudud anima kugu faraxsanay waxa samayso intaas ku filan marka insha Allah waa inaan kala bixinaa caruurteena waxay kalsoonidooda u yartahay badanaa waxa ku kambeer gareena cunug kale ama ruux kale saama noqot hebel waa saas heblaaya ka fiican waa saas hebel sidaas oo gurigiisa ka sameeyay dirista hebel waa saas kan waxa laga ka soo qaad markaan caruurta yaryarka baskooda saarano cunug baa hooyadiis maanta oo dhan 100 mar oo habsiina intuu bixi kan kalena ma uu ku ogo meesha carar ama tan kale ma cararkay cararto baska ida ordaysa ama asagoo orda galaan warka ma aha marka ha ku kambeer galaan qof walba Ilaahay dabeecad u sameeyay sidaas insha Allah wixii su'aal qabo su'aalada hada qabta insha Allah ila soo xiriir hoos ku soo qoro please subscribe gareeyo
share garee dadka la sii gaarsiiyo insha Allah dabeecadahan waan kasii wada hadli doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.